sida ay xaqiijinayaan warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo wadanka Djibouti ayaa sheegaya inuu geeriyooday taliyihii howlgelinta ciidanka Somaliland Colonel Faisal Cabdi Bootaan oo dhaawac culus ka soo gaaray dagaalkii u dambeeyay ee dhexmaray ciidanka xaquudirirka SSC si gaar ah guutada uu hogaaminayo taliyaha la hoolin waayay Colonel Cabdi Madoobe iyo ciidanka Somaliland dagaalkaasi oo ka dhacay dhanka galbeed ee magaalada Laascaanood isbitaal ku yaala wadanka Djibouti ayaa la xaqiijiyay inuu galabta ku geeriyooday Colonel Faisal Cabdi Bootaan oo ahaa sargaalka ugu sarreeyay ciidamada Somaliland ee dagaalka ka wada magaalada Laascaanood halkaasi oo caafimaad ahaan loogu qaaday Faisal Bootaan maamulka Somaliland ayaa qariyay warka geerida sargaalkan sare oo ahaa maskaxdii ka dambeysay duqeynta magaalada iyo shacabkii Laascaanood ee caruurta iyo duqeyda lagu laayay warar madax bannaan oo la helaya taminaya sargaalkan sare geeridiisa sidoo kale dagaal duqeyn u badan oo maqrinimadii caawa ka dhacay dhanka bari ee magaalada Laascaanood halka la yiraahdo Maraaga ayaa lagu gubay laba kamid ah hubka waaweyn ee ciidanka Somaliland waxaana duqeyn la soo adeegsaday lagu burburiyay laba qori oo kala ah BM12 iyo qori 105 ah labadan qori ayaa ahaa kuwii lagu duqeynayay magaalada Laascaanood laguna xasuuqay maatida toddobaadadii la soo dhaafay geerida sargaalkan sare ayaa muujinaysa sida dagaalkii dhacay toddobaadkan loogu jabiyay ciidanka Somaliland oo dagaalkaasi ku waayay ku dhawaad 130 askari iyo 20 sargaal oo sarsare loogana qabsaday difaacyo ay deganayeen oo ay kamid tahay halka la yiraahdo Dhuya Xunsho oo ay qabsadeen ciidamada xaquudirirka SSC ee hogaaminaya Colonel Cabdi Madoobe